Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi ballaaran oo horkacaya oo maalmihii lasoo dhaafay socdaalo shaqo ku marayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa maanta soo gaaray degmada Balanballe ee gobolka Galguduud, halkaas oo ay si diiran ugu soo dhoweeyeen golayaasha xukuumadda, maamulka degmada Balanballe iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha oo ay socdaalkiisa ku helinayeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid, xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano ayaa waxa uu boqolaal dadweyne ah kula hadlay fagaare ku yaala bartamaha magaalada Balanballe, halkaasi oo uu sameeyey magaalada Balanballe iyo shacabkeeda ballanqaadyo baahsan. Madaxweynaha oo boqolaal dadweyne ah oo isugu soo baxay soo dhoweyntiisa kula hadlayay garoonka kubadda cagta magaalada Balanballe ayaa ballan qaaday in degmada Balanballe ay martigelin doonto kulan weyne dib u heshiisiineed oo u dhexeeya dhammaanba beelaha dego Galmudug. Waxa uuna sheegay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor in gogashaasi nabadeed ee Balanballe lagu qaban doono ay ka dhigan tahay mid la isugu soo dhoweynayo bulshada deegaanadaasi si loo helo Galmudug nabdoon iyo bulsho nabad ku wada nool. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in maamulkiisa uu wax weyn ka qaban doono adeegyada bulshada ee ay tabaysa magaalada Balanballe sida waxbarashada, caafimaadka iyo nabadgelyada. Waxa uuna xusay in Balanballe ay heli doonto xuquuqda ay ku leedahay maamulka Galmudug, isagoona ugu baaqay dadka reer Balanballe inay qayb ka qaataan dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Galmudugta cusub si buu yiri loogu tillaabsado nabad iyo horumar.